marka dadkii marka ay ka dhigaan oo yiraahdaan maanta halkan ayaa la maal gashanaya oo ah bitcoin baa la maal gashanaya oo qof walba oo aad aragtid dhaweeye wada uu kaaga sheekeeyo yiraahdo niyo bitcoin ma naqashay macnaheedu waxa weeyaan maalgashigu ma ahanun baynu iri inay lacagahan ahaadaan maxaa kale oo qofku gelin karaa lacagtiisa maanta si ay beritole u noqoto mid uu ku anfaco sax badan aan waxaan u qaybiyaa wax la yiraahdo investment iyo speculation oo aan YouTube-keygana badan in badan kaga hadlay investment waxa weyn waa maalgashiga speculationna waa qiyaas fikradeed haddaba investmentigu ama maalgashigu waxaan u qaybiyey 4 gaar ahaan investmentigu waan u qaybiyey aan leeyahay hadda soo wado badan waxa maalgashada dadka billionaireska trillionaireska badan dadka lacagta leh maalgashada sababta maalgashada waxa weeyaan waxa uu og yihiin in halisteedu ay aad u hooseyso ay dib u raacna leeyihiin traceability iyo dib loo eegi karo waxani inuu faa'iido leeyahay oo maalgashigan aad maalgashanaysaana oo adiga dib wax kugu soconin markaan gudagal 4 waa kow hard assets oo ah macdanaha oon ognahay in haddii maanta aad $1 dahabi uu 5 sano ka hor aad gashatay waad ogtahay in uu sheegi hadda qiimo ku leeyahay sababtuna maxay tahay inagu og in viatku ama lacagahan aynu isticmaalana ay mar walba qiimo taqaan hoos dhacayo sababtuna ay tahay maadaama bankska ama aan dhaahday bangiyada waaweyn ay daabacayaan lacagan caadiyan suuqa looga baahan marka qiimihiisina uu mataqaan hoos dhacayo sheegana bala qiimeeyo marka hard asset waxaan ognahay inuu yahay mid sheyga lacagtaada ku keedin badanana billionaires waxa uu keedsan lacagtooda si uu lacagta ugu keediyo oo qiimaha lacagta ay halka u keedsanto laakiin sidoo kale waa maalgashi aad u fiican waa koowe talabada xun waa businesska badana dadka billionairesku waxay lacagtooda u badan ku maalgashadaan waa business ay og yihiin inuu fikrad wanaagsan leeyahay way ku maalgashadaan lacaguhu ugu badan haddaad fiirsatid 10 qof ee ugu khatarsan caalamka 9 qof lacagtooda u badan waxay ka soo gashaa business tasaddexaad waxa weeyaan finance marketsku anu imaada marka dambe waa isaga laftirkiisu waa investment waxaana ka mid ah forex comedians cryptocurrency sidoo kale macdantoo kale tusaalahaan iyadoo digital aad maalgashan karaysaa marka finance marketsku sidoo kale waa maalgashi laakiin waa inaad aqoonteeda leedahay haddaadan aqoonteeda lahayn wuxuu noqon doonaa speculation wuxuu noqon doonaa qiyaas fikradeed suuqyadana haddaba badanaa waxaa ku jira 10ka top 10ka dadka ugu lacagta badan leh hal qof kaga jira kaasna waa ninka aad ku taageero Warren Buffett lacagtiisa badan waxay ka soo gashaa finance markets marka suuqyadani sidoo kale waad maal gashan karaysaa laakiin waxay ku xiran tahay inaad leedahay aqoonteeda sida aad kuwa kaleba aqoonteeda ugu baahan tahay maanta nin aan garanin maanta haddaan daanyar aad u keentid oo tiraadid $10 oo aad soo garab dhigtay sidoo kale muus wuxuu dooranay muuska maadaama ma garanay qiimaha lacagtu leedahay inuu kiibsan karayo 100 xabo muus inuu kiibsan karayo mooga marka haddaadan aqoonteeda lahayn muuskad qaadani adoo arkaya wax ka qiimo weyn inuu agteeda joogo marka sidaas leeg waxa u baahan tahay tastaxaadna inaad aqoonteeda leedahay sida kuwa kale u baahan yihiin ta u dambaysa iyaduna ah real estate-ka runtii badana waxa la yiraahdaa multi millionaireska ama badana Amerikaanka dadka Amerikaanka ee noqday millionaires hantidooda u badan waxay ku sameeyeen real estate-ka another real estate-ku badana dadku waxa u yaqaanaan guryo real estate-ku wuxuu yahay waa balaaran yahay waa dhulkii waa guryihii waa wixii dhismaha agabkii dhismaha waxaas dhan baa real estate noqon karaya marka ta afraad ugu dambaysa waxa weeyaan waa real estate-ka hantida u badan dadka multi millionaires noqday gaar ahaan America dalka America badana lacagtooda badan waxay ku sameeyeen real estate-ka marka afartaniba runtii waxa ay u baahan yihiin aqoon laakiin sidoo kale mid walbaaba inagoo eegana riskiga khatarta ay leedahay way ku kala duwan yihiin laakiin afartan ayaa ah investment waxa jira daba speculationku waa qiyaas fikradeed badanaana qofku wuxuu soo maraa talaabooyin marka uusan aqoonteeda lahayn xirfadii u baahanid in wax ku maalgashado uu salayn isaguna sidoo kale uu salayn qofkii ku haboona iyo aqoonteeda lahayn wuxuu maalgashado ama lacagta uu bixiyaa waxay noqotaa speculation waa mid ku dhisan qiyaas fikradeed badana qiyaas fikradeedku waxa ku dhisan salahan inaad ciyaartid khamarka inaad ciyaartid salahan suuqyada finance markets iyo laftirkoodu waa qiyaas fikradeed haddaadan garinin sababtu maxay tahay waa maalgashi aad u geliso probability macnaha inay noqon karto suurtagalnimo inuu sheegii uu noqdo haddii aan maanta iraahdo waxa weyn suuqan kor buu bixi doonaa inay tahay still wili ka qiyaas fikradeed aadan adigu gacanta ku control garin karin marka sheegi waxa ka dhigaysa inuu noqdo speculation ama qiyaas fikradeed uu noqdo waxa ka dhigaysa waxa weyn labadan waxa ku jira suuqyadan waxa la yiraahdo volatility in suuqa ay dad fara badan suuqi ka ganacsanayaan abuurayaana in suuqi uu yiraahdo jam inuu noqdo oo la yiraahdo oo dadka
dadka iyagu raba sidoo kale ka ganacsanaya raba inay maal gashadaan andhahdee hedge fundska bangiyada iyo dadka lacagta haystayba waxay awoodi kareen inay arkaan suuqa intee qof ee ku jirta marka dadkii marka ay ka dhigaan oo idhahdaan maanta halkan ayaa la maal gashanaya oo ah bitcoin baa la maal gashanaya oo qof walba oo aad aragtid dhaweeye wadaa uu kaaga sheekeyo idhahdo niyo bitcoin maad maqashay macnaheedu waxa weeyaan cid walbaa og waqtigan suuqi waa jam waxaa la abuurayaa in dad fara badan oo aan aqoon u lahayni in suuqi markaa maalgashi uu sameeyo marka waxa ay ogaan karayaan hedge fundska ama dadkan bangiyadu inay arkaan suuqi jam yahay taasna waxa abuuraysa suuqa halistiisa sababta darteed buu noqonayaa suuqu markaa speculation ama qiyaas fikradeed waa ta koobaad ta labaadna waxa weeyaan suuqan dadka soo gelaya hedge fundska ama dadkan bangiyada ama dadkan lacagta haystay aan idhaahda BlackRock ama waa BlackRock waa dad isku tegay organization hantida u badan haysta caalamka dadkaasna waxay awoodi karayaan inay arkaan lacagtii marka dadkani sababta usoo galan suuqan maahan in adiga ku afka wax ku geliyaan waxa usoo galan sidoo kale inay lacag faa'iidaan marka suuqadan sidoo kale waxa ka dhigaya sababta ay u noqonayso speculation ama qiyaas fikradeed waxa weeyaan waa dadkii baa raba inay usoo galaan maadaama lacag degdeg uga sameeyaan iyo sidoo kale dadkan suuqa raba inay ka ganacsadaan inay usoo gelin keliya inay lacag ka sameeyaan marka labadan ayaa jirta qofkuna uu maalgashan karo waxay noqon karaysaa investment oo maalgashi caadiya iyo speculation laakiin wax walba oo wanaagsan ood maalgashan karaysaa wuxuu noqon karayaa speculation haddaadan aqoonteeda lahayn